السلام عليكم kulanti habboon daawadayaal idil ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 15aad ee taxanaheennii ayaan daran sheekada waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag qaybtana waxay ku bilaamaysaa sidan Faadumo waxay ka maqnayd asli laba bari sababo shaqo awgood maalintii dambe ayayna u timid iyadoo u wada dhowr qasaac oo yoga ah waxayna ku tiri eedo asli waan ogahay mushkiladda ugu weyn ee ku haysata in ay tahay meesha iyo jihada aad beegsanayso markaad isbitaalka ka baxdo runtii aad baan uga xumahay in aan go'aan ka gaaray hase yeeshee ma ahayn mid aniga iga soo fulay iminkana diyaar baan u ahay in aan ijaarka ka baxsho kuna kaalmeeyo intaad 40ka ka baxayso anaa la hadlaya dhakhtarada si ay muddada aad joogtid kugu sii dheereeyaan Faadumo intay salaantay asli bay gurigeedii dib ugu noqotay asli oo ahayd gabadh yar waxay ka walwashay laba arrimood waa ugu horreyn guri haddii la helo xagee furaash laga keenaya sideese kaligeed gooni ugu noolaan kartaa tan labaad iyadoo umul ah una baahan baanasho nafaqo iyo xanaano sideebay iyada iyo cunugeedu ku jiri karaan haddii aanay helin kaalmo gurmad ah asli cunugeedii bay intay eegtay oo dhabta saartay tiri aniga la igaray oo waxaan ahay dambiile hase yeeshee saqiilkani muxuu galabsaday asli toddobaadkii ay cusbatalka ka bixi lahayd waxay ku darsatay 10 beri oo kale waxaana subaxdii dambe asli u yimid dhakhtaradii iyadoo u sheegtay in 2 maalmood kadib ay bixi doonto asli dhakhtaradii markay ka baxday waxay ku fakartay dhakhtaradu waa gabar wanaagsan oo wax garad ah sidaa darteed waa in aan warsado kulley ii diidi maysee inaan isbitaalka ku sii jiro toddobaad kale galabnimadii dambe baa asli oo dhafoorka haysa naaskana u dhigaysa cunugii waxaa ku soo kadisay canab oo intay ku dhegtay ku tiri alla waa cadaawe oo meesha taagan u eeka asli baa tiri ha u eekaado ama yuu u eekaane cadaawe cunugan shaqo kuma leh igana daa walaalay magaciisa markaan maqlo meel baa damqanaysee canab waxay asli u sheegtay in iyada iyo Faadumo u soo heleen guri ku yaala degmada Waabari ayna isbitaalka ka saari doonaan galabnimada casarnimadii waxaa asli isbitaalka ugu yimid canab iyo Faadumo oo wada socda waxayna ku qaadeen ambalaaskii isbitaalka iyagoo geeyay gurigii ay u soo heleen markii guriga ay soo xululatayba asli waxay garatay in sariirta loo dhigay ay tahay tii baydan oo ahayd umulso Faadumo hooyadeed sariirtaas oo ahayd mid duug ah oo moolaheedu dabacsan tahay ugasheeduna duug ahayd hase yeeshee dani waa seete asli marnaba uma haqal taagayn gurigii fiilada ahaa iyo salootidii kaligeed ay ku degan jirtay ee guriga reer Awjaamaa waayo noloshaas waa hore ayay istaayeen iyaduna farda kula carar bay u ahayd wax kasta oo ay beerka dhigto canab iyo Faadumo fiidnimadii bay ka tageen aslina xaaladeedu aad bay u xumayd waa markii ugu horeysay ee kaligeed guri cidla ah loogaga dhaqaaqay waxayna daris la ahayd dad danyar ah oo iyaguba aan ka badin karin quutaliyoonkooda guriga asli la dejiyay waxaa iska lahaa islaan ay Faadumo saaxiib ahaayeen cidda dariska la ah asli isla habeenkiiba waxay ka war heleen in cunugeedu uusan aabe lahayn sidaa darteedna waxaa la moodayay in ay ku ballameen in aanay wax miciin ah u gelin asli oo habeenkii oo dhan soo jeeday subaxii ayay daaradda u soo baxday iyadoo doonaysa inay dariska weydiisato inay caano suuqa uga soo iibshaan waxayna la kulantay haweeney quraac u samaynaysay ilmaheeda oo dugsiga ka daahay asli intay soo kor istaagtay bay tiri subax wanaagsan haweeneydii intay kor u eegtay oo ay garatay in ay asli tahay bay shaqadeedii iska sii wadatay joogna aanay u oran asli mar labaad bay hadalkii qaadatay oo tiri eedo magacaaga ii sheeg ciddii xalay idinla soo daristay baan ahay waxaan u baahanahay cid dhalo caano ah ii keenta intii haweeneydii aanay jawaabin baa gabadh ay dhashay oo 13 jir ah oo dhigata dugsiga dhexe hadalkii qaadatay oo intay u soo dhawaatay asli ku tiri hooyadii magaceeda waxaa la yiraahdaa cusub anigana Fardowsa intii aysan asli jawaabin baa cusub intay kacday dharbaaxo ku dhufatay gabadhii iyadoo leh naaya waad asdheer tahay
ee orod oo intaad bugaagtaada soo qaadatid dugsigaagii ahayd. oohintii Fardowsa iyo qayladii hooyadeed waxaa ku soo baxay Axmed Dheere oo ahaa madaxa qoyska, wuxuuna ka warsaday gabadhiisii Fardowsa sababta lagu dilay. waxayna tiri, aabe, gabadha gurigaas ku jirta baa hooyo hal saac la hadlaysay, hooyana waa ka aamustay, markaasaan la hadlay, kadibna way dishay. oo ma intaas oo keliya bay kugu dishay buu yidhi Axmed Dheere. cusub oo didsan baa intay gurigii soo gashay tiri, Axmed Dheere ha dilin, gabadha baad leedahay, qofka ay la hadlaysay ma taqaanaa waxa ay tahay. aqoon okida xalay bay guriga soo galeen buu ugu jawaabay Axmed Dheere. cusub waxay u sheegtay duqeeda in gabadha guriga soo degtay ay tahay isla wareegto haysatana cunug wiceel ah. Axmed Dheere waa xanaaqay, wuxuuna yiri, oo yaa soo dejiyay halkan, maxaadse ugu diidi weydeen? annagu cid degan baanu nahay, mana doonayno buuq iyo rabash. yaaba nagala tashaday dhakhtarad magaceeda la yiraahdo Faadumo oo ay saaxiib yihiin xaajiyada guryaha iska leh baa keentay. haddaba xaajiyadu guryaha ha gasho, annagu waa nuga guuraynaaye buu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay Axmed Dheere. walla guri la'aan baan nahay, mar hore ayaan xaajiyada u faaruqin lahayn buulkeeda. intay tiri cusub bay u wareegtay ciddii dariska la ahayd. asli way maqlaysay dooda dhex martay cusub iyo ninkeeda, waxayna ku gunuunucaysay, yaa badanaa maxaa dadkoo dhan igu diray? maxaa ciddii i aragtaaba ii colaadinaysaa? bal maxaan u dhimay oo ay guriga iiga saarayaan? waa kuwa iyagu ileh waa isla wareegtee, yaa u sheega inaan cimrigayga mar qura gef galay. asli markii ay aragtay in xaafadda uu ka bilowday jawi lagu colaadinayo, bay intay cunugeedii guriga dhakada kaga xidhay suuqii u luuday. intii jidka ay soo socotay dhowr jeer bay daal awgii darbi cuskatay. ugu dambaystiina iyada oo dawaqsan bay gurigii ku soo noqotay, sariirtii ayayna ku finiintay. 12 barqannimo baa waxaa asli u yimid umuliso Faadumo oo ay la socdaan 2 gabdhood oo sita boorso weyn oo daawooyin ka buuxaan. markaas bay ku tiri, eedo asli iska waran, 2 gabdhood waxaa la kala yiraahdaa Jawaahir iyo Siciido, waana kalkaaliyaal ka shaqeeya bukaan socodka eegta ceelgaab, qaybta haweenka iyo carruurta ee MCH-ka. waxayna diyaar u yihiin inay subax walba kuu yimaadaan oo daawooyin iyo caanabooraba kuu keenaan inta aad 40-ka ka baxaysid. asli waxay Faadumo u sheegtay in dhibaatada ugu weyn ee haysata ay tahay in aanay jirin cid u adeegtaa. oo sawtii saaxiibada canabka ballan qaaday in ay ku caawiso ma aha, xaggee bay ka baxday? bay tiri Faadumo, waxayna intaa ku dartay in ay iyada qudheedu u baahan tahay qof u adeega oo ay ka tagtay gabadhii u shaqayn jirtay. Faadumo joog hilib kalaankal iyo subag ka buuxo bay intay miiska u saartay asli ku tiri, asliyey waan ku ogahay in calool xumo ku hayso, ee dulqaado, ogowna inay dhibaatadaada samaani ka dambayso, aniguna waxaan kuu awoodo kaa hagran maayo. intaasi kadib maxaa dhacay? la soco daawade qaybta inoo xigta qaybtan maanta. sheekadana waxaa qoray Dr. Cabdillaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag.